xiiseynaya inuu noqdo mid ilmihii ka warhaya. Mid ilmihii ka warhayana maxaan ka wadaa horta siiba falsafadan Montessori dhexda waxaa u yaala yacni falsafadan dhexdeeda waxaa ilmaha. Een, tan ugu weynna waxa weeyaan inaad ilmaha ka daba socotid. Ka daba socdana kama wadi inaad ilmaha yacni jir ahaan aad ka daba socotid. Waxa weeyaan kolba wuxuu sameynayo mise wuxuu xiiseynayo inaad ka daba socotid. Haddaad aragtid ilmahaaga inuu xiiseynayo maxaa la dhahaa inuu wax dhiso, waxaad u hirgelinaysaa inuu helo wixii uu dhiso ama ha noqoto dhagaxaan inuu isdul saaro ama ha noqoto cubeskan leegada inuu isdul saaro. Sababta ilmaha waxay leeyihiin wax la dhaho sensitive period oo ah xaalado oo maxaa la dhahaa marxaladooyina wax xiiseeyaan. Qof kastoo ilmana lena uu arkay uu garanayaa marmar ilmahoodii hal mar ay dhahaan hooyo ilmo 4 sano jira xarfahaas maxay ka bilowdaan kaas xaggaas maxaa ku qoran. Maxaa laga wadaa ilmihii inuu yacni xiiseynayo inuu wax akhriyo mise inuu maxaa la dhahaa luuqadda barto sida wax loo akhriyo mise sida wax loo qoro. Maxaa laga rabaa waalidkii inuu u fiirsado heblaayo mise hebel hadda arrintan bay xiiseynaysaa arrintan ayaan ka caawinayaa. Marmar ilmihii waxaad arkaysaa inuu xisaabtii xaggaa maxaa ku qoran 20 nambarkaas waa maxay waa 5. Ilmihii hadda wuxuu leeyahay yacni wuxuu marayaa waqti mise marxalad uu nambaradii xiiseynayo. Wixii baad ka caawinaysaa waad u suurtagelinaysaa inuu waqtigaas ka faa'iidaysto. yacni muhiimadda waxa weeyaan inaad ilmahaaga ka daba socotid wuxuu xiiseynayana aad ka daba socotid. Sidaasuna runtii ilmahaaga guul ku gaaraya. Runtii falsafadan Montessorina asaas waxa u ahsaan sheegay ilmaha in la ixtiraamo, ilmaha in hadalkiisa la tixgeliyo. Waana runtii haddaan xitaan fiirino diinteena islaamka wax aad yacni la siman. Hadda misaalan nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaa la yidhi markuu ilmaha la hadli jiray wuu u jilbajabsan jiray siduu ula hadlo. Taasna maxaa keenaysa qofka weyn ilmaha saaid buu uga dheer yahay yacni qof mitir iyo maxaa la dhahaa 2 mitir ku dhow iyo ilmo yaroo aad u gaaban oo xitaa 1 mitir gaarayn markay isla hadlayaan runtii yacni waa qofka waalidka ma ahan wuxuu weligii garan karo sababta weligaa ma arkaysid saad ilmaha uga dheer tahay qof kaa dheer inaad la hadashid qoortaada ku daalaysa kor markaad fiirinaysid. Marka nabigeena wuu jilbajabsan jiray ilmaha indhuhu ka fiirin jiray markuu la hadlayo. Hadda falsafadan Montessorina aad bay u tixgelisaa ilmaha markaad la hadlaysid u jilbajabso fiiri mise ilmaha kor u soo qaad kadib la hadal. Waxa weeyaan calaamad ixtiraamaad ilmaha tusaysid oo dhahaysid markaan isla hadlayno waan is arkaynaa. Maxaa la dhahaa ixtiraamka waa wax aad yacni diinteena ugu weyn inaad qof kasta ixtiraamtid. Marka yacni dhan kasta haddaad ka fiirisid runtii falsafadan Montessori waa aad bay yacni diinteena ula siman tahay oo haddaan fiirino arrimahan la dhaho core valueska yacni maxaa la dhahaa asaaska wax u ah waxa weeyaan asaasyaal aad u fiican oo ka hadlaya ixtiraamka iyo qadarinta ilmaha. Faa'iidooyinkay runtii leedahay Montessori haddaan ka fikirnana waa faa'iidooyin aad u weyn. Markaad ilmahaaga oo yar aad maxaa la dhahaa aadan ku qaylin, markaad siisid ixtiraam, markaan arrimahan oo dhan aan kasoo hadalay aad samaysid oo ah inaad gurigii u hagaajiso uga dhigtay guri maxaa la dhahaa maxaa la dhahaa yacni guri oo yacni u hagaagsan uu xurriyadiisa ku fulgarin karo markaad ixtiraamkii siisay. Runtii ilmahaas wuxuu noqonayaa ilmo horta kalsoonidiisa dhisan tahay. Wuxuu noqonayaa ilmo aaminsan wax kasta waan samayn karaa. Wuxuu noqonayaa ilmo yaraantiisa barta sida kabihiisa loo xirto, sida caanihiisa loo soo shubto. Yacni ilmo naftiisa ka adag oo naftiisa ku kalsoon ayuu noqonayaa. Tan kaloo hadda igu soo dhacdayna inaan ka hadlo waxay ahayd falsafada Montessori aad xitaa waxay ugu weyn tahay wax la dhaho practical life skills oo ah ilmaha inaad yacni ilmaha ugu yeertid inuu ka qayb qaato hawsha guriga oo ah ilmaha hadda markay aad u yar yihiin qof kastoo ilmo leh runtii arrintan u arki karaa 7 sano ilmaha markuu ka yar yahay aad ilmaha wuxuu u xiiseeyaa inuu cunto kariyo inuu hooyadii mise aabihii ku daydo yacni hawsha guriga inuu ka qayb qaato. Runtii waxaana weeya skill mise maxaa la dhahaa xirfad aad muhiim u ah ilmaha inuu barto
inuu ka qayb qaato hawsha guriga, inuu qashinka soo tuuro, inuu miiskiisa tirtiro, inuu saxankiisa haddii mashiinka weelka lagu dhaqayo uu geliyo mise meesha weelka uu gasho. Inteena badanna haddaan runtii Soomaali nahay mana jecli inaan Soomaali yacni waxaan nahay dad badan inaan cambaareeyo oon dhaho Soomaalidoo dhan baa saasa. Laakiin inta badan aan ku arkay runtii dadkeena waxa weeyaan ilmaha markuu yar yahay waxaa lagu dhahayaa jooji hayla samaynin, orod qolkaaga kusoo ciyaar. Ilmihii yacni markuu rabo inuu hawsha ka qayb qaato. Waxaad arkaysaa ilmihii 7 markuu gaarayna mise 8 uu gaaray uu soo yara weynaaday in laga sugayo inuu hawsha qabto. Maad qolkaaga hagaajisid, maad qashinka tuurtid, maad waxaan samaysid. yacni waa halkii ixtiraamka ilma aadan 6dii sano mise 7dii sano noloshiisa ugu horeysay aadan ka qayb gelin hawsha guriga, sideed uga sugi kartaa inuu hawsha guriga uu ka qayb qaato markuu gaaro da'dii laga rabay inuu ka qayb qaato. Laakiin haddaad ilmaha markuu yaraaba 1 sano markuu jiro 2 sano markuu jiro xaaqin yar aad siisid maxaa la dhahaa runtiina markay yar yihiin waalidka inta badan baqdintooda waxa weeyaan waxba ma hagaajinayo waxbuu sii kharibayaa. Laga yaabaan xaqiiqda runtii inay tahay inuu wax sii kharibayo laakiin wax kharibkaas wax badan buu ku baranayaa. Meel hadduu tirtiro wasakhdii geesaha kaleeto oo dhan kusii faafiyey laga yaabaa sanad ka bacdi markuu 2 gaaro mise 3 uu gaaro inuu wasakhdii barto si loo tirtiro. Laakiin haddaadan siin fursadaas inuu wixii ku practice gareeyo mise uu sameeyo goormuu gaarayaa guusha inuu hawshii jeclaado, nadaafadii jeclaado. Runtii marka falsafadan Montessori aad ayay ugu weyn tahay ilmaha in la siiyo fursado inuu hawsha guriga ka qayb qaato isagoo yacni aad iyo aad u yar. Maxaa la dhahaa marka haddaan hadda soo koobo ugu dambeyntii hadalkayga adiga waalid ahaan maxaad samayn kartaa sideed uga bilaabi kartaa ilmahaaga inaad maxaa la dhahaa tarbiyadan Montessori aad ka qayb qaadatid. Aad bay runtii u weyn tahay laakiin faa'iidooyinka yacni ay leedahay inaad apply ku samaysid mise aad dhaqan gelisid. Tan koowaad waxa weeyaan ilmahaaga ixtiraam. Ilmahaaga yacni waa wax aad u fudud kaagama baahnin inaad dukaan aadid inaad wax soo iibisid. Waxa weeyaan qodobyo hadda markaan hadalkeena aan dhammayno aad beriba ka bilaabi kartid inaad hirgelisid ood faa'iidooyin badan iyo mirooyin aad u fiican ay kuu dhalinayaan. Tan koowaad waxay ahayd ilmahaaga inaad ixtiraamtid ood ula dhaqantid sidii qof weyn. Markastaad ilmahaaga la hadlaysid waxaad maskaxdaada ka soo qaadaa inaad la hadlaysid qof oo adiga kula siman si yacni lamaanahaaga mise maxaa la dhahaa walaalka mise qof aad isla shaqaysaan ka soo qaad saadiga ula dhaqmi lahayd ma ku qaylin lahayd may hadday ku fahmi waayaan ma yasaysaa waa may arrin ma isku daynaysaa inaad u sharaxdid haa su-aal hadday ku weydiiyaan qof weyn maanta ma uga jawaabaysaa mise waad yasaysaa waad uga jawaabaysaa. Yani ilmahaaga inaad si ixtiraam leh ula dhaqantid oo arrimahan hadda soo sheegay oo dhan aad tixgelisid inaad u aragtid ilmo yar haa laakiin adoo da'diisa tixgelinaya inaad ixtiraam buuxa aad siisid. Tan labaad waxa weeyaan gurigaaga inaad ka dhigtid guri uu ilmahaaga ku noolaan karo oo maxay tahay inuu firijeerkiisa furan karo, inuu koobkiisa iyo weelalkiisa meelay hoose u yaalaan, in alaabtiisa ciyaarta uu gaari karo uusan yacni markasta inaad ka fikirtid dhanka gurigaaga yacni intaad kusoo yara wareegtid albaabka intaad istaagdaan gurigiina kusoo wareega ilmahayga guriga markuu soo galo kabihiisa ma dhigan karaa, katabaanka jaakadiisa mu suran karaa mise fanaanadiisa, qolkiisa markuu galo alaabta ciyaarta mise wuxuu ku ciyaarayo meel dhow may u yaalaan uu isaga yacni keligiis ka soo qaadan karo. Gurigaaga dhan fiiri ilmahaaga yacni sidee ugu fudud uusan caawimaadaada kuu weydiisanayn uu keligiis wixiisa u samayn karaa. Bilowgana runtii wax aad u fudud maahan oo ilmahaaga waa tusaysaa xagganaad weelkaaga kasoo qaadanaysaa markaad dhamaysid xaggaasaad ku celinaysaa yani waxay u baahan tahay practice aad u badan. Marka qodobkeena koowaad wuxuu ahaa ilmahaaga ixtiraam sii. Tan labaadna waxay ahayd gurigaaga waxaa ka dhigataa guri habaysan uu ilmahaaga maxaa la dhahaa si xornimo ugu noolaan karo. Tan saddexaad waxa weeyaan ilmahaaga waxaad siisaa xurriyad oo xuduud leh oo ah ilmahaaga ha u muujin markasta inaad adiga maamulaysid ood go-aan ka gaaraysid. Waxaad siin kartaa wax kasta ay noqoto waxaad siin kartaa 3 option ee kala duwan. Hadday tahay maalintaad macmacaanka cunaysa inaad tirahdid hayo hoy maanta ma chalaataad cunaysaa ma chibis baad cunaysaa mise shuklaataad rabtaa. 3 option baad siisay xabad buu ka doortay isagaa go-aankii ugu dambeysay gaaray laakiin adaa xuduudii baad u samaysay.
taas waa saddex. Tan afraadna waxa weeyaan inaad iska ilaalisid ilmahaaga inaad ku qaylin, isku day inaadan ku qaylin, hadday kaa qabato waalid ahaan inaad qaylisid, neefso, ilmahaaga meeshuu jooga ka dhaqaaq, cabaar kabacdi usoo noqo. Qodobka ugu dambeysana wuxuu la xiriiraa kii ugu dambeysaan kasoo hadlay oo ah ilmahaaga shaqada guriga ha ka qayb qaato oo ha u diidin, ha ahaado ilmo yaroo sanad jira, 2 jira, 3 jira, in ku filan oo ku habboon oo isaga yacni aad da'diisa tixgelinaysid ha ka qayb qaato. Yacni hadda ma dhahayo ilmo 2 jira mindi u dhiib hadduu rabo inuu wax jarjaro, may. Laakiin adoo da'diisa tixgelinaya hawshaad isleedahay isaga wuu ku filan yahay mise iyada wuu ku filan yahay inaad siisid. Marka hadalkayga intanan kusoo koobayaa, runtii wax yar baanan ka hadlay oon ka taabtay falsafada Montessori aad bay u weyn tahay. Waalidiinta xiiseynaya inay kasii baaraan mise ay wax kasii hadlaan, dhowr buug ayaan idiin soo qori karaa oo waxaa jira buug la dhaho Montessori Baby ay qortay maxaa la dhahaa naag Australian oo la dhaho Simone Davis, iyo Montessori Toddler waa 2 buug. Dadka groupkan ku jiro Ingiriiska ku hadla waan idiin soo dhigi karaa insha Allah. Marka insha Allah 30 daqiiqo ayaan qorsheeyay, dhowr daqiiqana hadda 30 daqiiqo la dhaafay. Marka insha Allah haddana qofkii su-aal ka qabo hadalkayga mise su-aala guud oo ku saabsan tarbiyada carruurta insha Allah way idin furan tahay inaad weydiisaan. waa hagaag maasha Allah. aad iyo aad baa horta shacni u mahadsan tahay. arrintan aadka u weyn oo aad nala wadaagtay oo ku saabsan barbaarintan carruurta oo ku salaysan gabadhan Talyaaniga oo Maria Montessori la yiraahdo ay maaragtay dunida kusoo siyaadisay. waxani waa wax ay fakartay oo maaragtay ay nadaamisay oo hirgelisay, waa wax maaragtay dabiici ah oo Ilaahay uu subxaanahu wa tacaala uu bini'aadanka u abuuray in qaabkaas loola dhaqmo. ani ahaan sababta aan u xiisaynayo oo rabo in waalidku ay wuxuun ka bartaan waxa ay tahay maanta haddii aad maaragtay dunida inaga dad muslima baan nahay ama Soomaalida dhaqankeeda aad fiiriso, maad helaysid buugaag ama isgareeyay oo ku dhahaya ilmahayga dhaqan Soomaaliyeed iyo diin Islaam baan ku barbaariyay. maanta intaasoo sanuu jiraa, buugaagtaanaan ka qoray, sidan hadda ay u qodobeynaysay qodobada la raacayo oo tiirarka u ah oo principleska ah waa sidaa, waa inaad xeer kaa qaadato marka aad ku dhaqanto arrinkaas 7 sano ugu horeeya ilmaha oo uu barbaarinta uu qaadanayo. ilmo noocaasa baa kuu soo baxaya mustaqbalka, ama qof noocaasa baa 20 jirkiisu uu noqonaya ma ay jirto. markaan aniga barbaarin badan baaray oo iyo dariiqyo badan oo ilmaha loo koriyo, Montessoriga waxaan u arkay inuu islaamka uu aad ugu dhow yahay marka dhinaca ixtiraamka laga eego, dhinaca xurriyadda marka laga eego, runsheega ilmaha in loo runsheego marka laga eego, waxyaabahaas oo dhan marka la eego. marka ujeedka aan ka leeyahay waxa ay tahay materialkii ama fiidiyoyo, buugaag, muuqaalo dhaba oo jira, iskuulo yaa intaba waalidka suurtagal u ah uu heli karaa oo ilmihiisa maaragtay uu u isticmaalo. sidaas aawadeed baan maaragtay ujeedkaygu uu ahaa. shacni aad bay u mahadsan tahay. waxaan rabaa inaan iyadana xoogga saaro dhowr qodob oo hadda tiirarka u ah Montessoriga oo ay xustay, sida qodoba kan ah ilmaha in guriga looga dhigo guri suurtagal ay tahay inuu dhexdiisa ku adeegan karo oo isagu wuxuu rabo qabsan karo. waxyaabaha ugu badan oo waalidka Soomaalida nerveska ka dhiga oo dhiigga ku kariya waxaa ka mid ah adeega ilmaha uu mar walba khidmad ku weydiisto. hooyay kaale nalka ii shid, hooyay kaadiba ay haysa suuliga ii geey, albaabkan iga fur, biyo isii, kaale caana ii shub. waxaa laga yaabaa 1 daqiiqo gudahood 3 dalab ama 4 dalab inuu ilmuhu ku weydiisto. waa arrimahan aadka ugu dhib qabno. marka waalidka Soomaalidu waxay u arkeen inuu halkaa ka qaadanay fikir ah inuu ilmuhu isagu sidaa doonayo in loo khidmeeyo oo waalidku uu adoon noqdo oo mar walba u kaco wax soo qabto ilaa halkaas maaragtay ay ka dhex dhalato karaahiyo
xoog leh ay ka dhex samaysanto oo maaragtay marka dambeeto waalidku uu furka tuuro oo qayliyo uu yiraahdo naga tag waxba kuu keeni mayna iyo naga fariiso iyo naga bax hadda adoo suuliga geeya waxa laga yaabaa in jirkaadi kala qabato hadday badan yihiin warkood badaaba maanta dhan suuliga mid geey iyo mid biyo u shub iyo mid caana u shub iyo mid nal u daar iyo mid maaragtay dhar u geli iyo mid wax u qabo iyo mid maro u soo saar baad ku jiraysaa marka arrinkaas xaqiiqatan caruurtu ma doonayaan in loo adeego ma doonayaan hadalkaa meel ku qorta ilmuhu wuxuu jecel yahay inuu xor noqdo qof waalida oo hadda dadka meeshan ku jira kontonka qof oo igu diidi karaa ma jiro surwaalka ama iskaalshada ilmuhu isagoo yar oo sanad jira wuxuu isku dayayaa inuu xirto diidana waxa laga yaabaa in kula dagaalamo xanaaqo funaanada wuxuu ku leeyahay anaa iska bixinayay idaa ilmaha labada jiray kan saddexda jiray kan afarta jiray shan warkeed badaaba cuntada ma jecla ilmuhu afka loogu guro wuxuu jecel yahay inuu isagu cuno talaagada wuxuu jecel yahay in isagu wax kala soo baxo nalka waxaad arkaysaa isagoo kursi jiidanayo wuxuu rabaa inuu nalka daarto yacni wax walba ilaahay wuxuu ku abuuray qofku inuu isagu isdabiro oo uusan qof kaleeto ku tiirsanaan laakiin innaga dhaqankeena Soomaalida waxaynu qaadanay aragti maadaama gurigii uusan ilmihii u diyaarsanayn inaynu inagu mucsir ka dhigno curyaan oo goortaas ilmihiina ay bartaan inaan u khidmadayno mar walba intuu ku yimaado uu ku dhahayo soo kac kaali talaagada waxa ka soo bixi caana isi kan ii shub ka ii qabo faraha caruurtu kuwa dadka waaweyn la mid maaha khibrad bay u baahan yihiin haday markay shacni ka hadlaysay nadaafada oo kale markay iskoobada ku qabsadaan waxa laga yaabaa inay wax wasakheeyaan ka daba tirtir laakiin muddo bil gudaheeda waxaad arkaysaa iyaga oo guriga tirsirisiisa say u garanayaan aad yaabayso dhibaatada arrinkan oo inoo keenay waxa kale oo kamid ah ilmuhu marka uu qaan gaaro oo weynaado oo waxa leeyahay uu soo weynaado oo age-ka barbaarinta ka baxo 8 9 ama 10 gaaro waalidkii ilmihii wuxuu ka rabaa mas'uuliyad waxaa la rabaa inuu iskuulkiisa isagu u kaco inuu dharkiisa la soo baxo inuu labisto inuu boorsadiisa qaato inuu iskuulkii aado inuu boorsadii xataa uu mas'uul ka yahay maalin walba waalidka waxa haysata ilmihii kabuu iskuulka kaga imaanaya buugaagtii buu soo dhuminaya boorsadii buu ka tegaya garoonka kubadda lagu ciyaaro boorsadiisa kaga soo dhaqaaqaya isagoo dayacan buu imaanaya subaxii ma kicin karaysid dharkiisa guriga meelahaas ku wada firqsan yahay ma urursanayo kuwii waaweynaado 20ka gaaray macawista meeshay kaga dhex baxayaan waxay rabaan in hooyadu ka daba qaado ka daba ururiso waxay rabaan in iyadu u dhaqdo waxay rabaan in iyadu u feerayso waxaasoo mashaakil maxaa keenaya caruurteena marka horeeto oo yar yihiin 7 sano oo ugu horeysa early age-ka waxaynu u noqonaa adoon u khidmaysa waalidka wuxuu noqdaa adoon u khidmeeya hadhowdana wixii buu karahsadaa saataa keenta marka ilmuhu markuu teenage ka noqdo in waalidka iyo ilmihii isfahmi waayaan inuu leysi noqdo iska hurdo aan kacayn maskaxdiisa khalkhal badani ku jiro shoog badani ku jiro uusan bagaranayn dunidan si loogu noolaado dhibaatooyinkaasay keentaa marka ujeedka aan Montessori-ga ka leenahay waxa weeye maadaama uu baraayo waalidkii oo si practice u baraayo YouTube-kii laga helayo materiaalkii buugaagtii la helayo wax walba la helayo inay waalidka Soomaalidu ay ku tababartaan sida aawadeedna ay raaciyaan diintii Islaamka iyo dhaqankii Soomaaliga ay raaciyaan wixii wax isdiidaya maaha halkaas waxa ka soo baxaya marka ilmo caafimaad qaba marka insha Allah waalidkan ku soo dhaweynaya cidii su'aal ka qabta ama maaragtay comment ku darsanaysa waxaan jeclahay raggu marka horeeto inay gacanta soo taagtaan gacantaagta meesha mayga uu hadda ka xiran yahay baa taabanaysa halkaasaad markaa waxaa gacanta ka taaganaysaa qofkii doonaya inuu hadlo bal raggu marka horeeto soo dhawaadeen rag dhowr baan hadda gruupka ku arkaa oo maaragtay ku jira Bashiir oday Bashiir waan garanayaa isaga ninka la yiraahdo Saalax baa isaguna ku jira waxa kale oo ku jira gabdho caruurahoodu ay soo dhigteen oo hadda caruuro waaweyn oo 12 jir ah haysto iskuulo Montessori ay soo dhigteen iyaguna way noo sheegi karaan su'aasha ugu horeysa marka su'aalaha ugu horeeya raggan ku furaya anaa raba inaan marka horeeto shacni weydiiyo hooyo shacni su'aasha koowaad waxay tahay aan ku weydiinayo shacni caruurta Soomaalidu waxay yiraahdaan caruuraha kale waa ka qalqaalisan yihiin waa dhib badan yihiin waa ka qaylo badan yihiin caruur wax maqasho maaha guriguna waa guri iska buuq badan caruurta Soomaalidu ay joogto waa caruur dhib badan ilmahan hadda labada caruur oo haysato oo aad hooyada u tahay oo tarbiyadan Montessori-ga ku barbaarisay af Soomaaliya message oo ilmo degan oo aan buuq lahayn ma yahay oo guriga alaabtiisu ay isdhex daadsanayn alaabtooda ciyaartu u nidaamsan tahay adiga aan ku dhibin oo mar walba tafta ku haysan oo iyagu isdibirayo talaagadooda furanayo nalkooda haday rabaan maartay aad kursi u dhigtay oo gaaraya ani waan tijaabiyo caruurta nalka iyo kursi baa u yaala ma garanaysaa
koobkooda iyagaa soo qaata caanaha xataa qasashadooda iyagoo afar jira bay barteen oo maaragtay iyagaa qasta marka bal inaad nooga jawaabto su-aasha meeshii qalqaalinimada caruurta soomaalida lagu sheego lagu xanto ilmo degay oo guriga kuwait yaho bilaa buuqa ma noqdeen kusoo dhawow. horta marka ugu horeysa haddaan horta dhaho hooyaa jirta oo ilmaheeda dhahaysa ilmahayga maanta waa ilmo degan oo wax kasta iskugu toosan yihiin oo waxba kama khaldana oo runtii ka khaldanna waa kelmad khalad oo la isticmaalo in la dhaho ilmaha waxbaa ka khaldan laakiin hooyo ku dhahaysa ilmahayga maanta aad baan tarbiyadooda ugu kalsoonahay oo dee ma jirto wax kalaan qaban karo horta ani ilama ahan jawaab fiican oo markaste hooyo kaste mise waalid kaste markasta improvement mise inuu siduu yahay si ka fiican uu noqdo markaste waa wax wanaagsan inuu iska raadiyo mise uu hadaf ka dhigto laakiin arintan horta keenaysa inay inta badan ilmaheena ay yihiin ilmo qalqaaliya mise maxaa la dhahaa markasta aad moodid inay stress ku jiraan mise jahawareer ku jiraan waxaa keenaya gurigiiba ah guri noocaas ah gurigiiba ah guri oon nidaam ka jirin laga yaabaa ilmahaas yacni inuuba ku jiro guri buuq ah ilmahana runtii waalidkooda waxay ka dareemaan mise waalidkooda waxay ku arkaan unbay ku qoraan ilmihii hadday la nool yihiin waalid markaste ku jira go yacni maanta dhan ilmihii waalid stress ku jira waalid maanta dhan telephone ku hadlaya waalidaan yacni jooga jir ahaan u jooga laakiin maskax ahaanan u joogin ilmihiina waxay noqonayaan ilmo maanta dhan qalqaaliyood moodid inay dhaqso u socdaan yacni ilmo degan aysan ahayn laakiin waalidka hadduu yahay waalid jooga waalid ilmihii u jawaabaya waalid gurigii ka dhigaya guri jawi degan oo waxyaabuu isticmaali karo waalid inuu guriga ka dhigo guri jawi degan waxa weeyaan inuu guriga u sameeyo waxa la dhaho routine kelmadaasna runtii af soomaali ma garanay wax lagu dhaho laakiin waxa weeyaan jadwal joogto ah guriga in loo sameeyo ilmaha wuxuu jecel yahay inuu gurigii leeyahay jadwal joogto ah subaxii in waqti la og yahay lasoo kaco ilmihii inuu garanayo xilliguu qadaynayo markuu ilmaha qadeeyo kabacdi inuu garanayo hurdo galab baan seexdaa xilligaasaan soo kacaya yacni ilmihii inuu ka warhayo jadwalkiisa guriga inuu og yahay okay hurdada markaan kasoo kaco maxaa dhici doona soomaalidana dhibaatada ilmaha haysatan inta badan waxa weeyaan gurigii ma ahan guri nidaamsan oo maxaa la dhahaa jadwal aan lahayn oo waa guri laga socdo la iska dhex boodayo maxaa la dhahaa ilmihiina uu noloshaas degdegsan noloshaas maxaa la dhahaa wareerka ah uu ku dhex jiro oo ku karayo runtii aad yacni waa ilmaheena dulmiyaan ku sameynayna inaan markan ka sugayno inay noqdaan ilmo degan hooyadii mise aabihii oon degnayn inaan ilmihii ka sugno inuu noqdo ilmo maxaa la dhahaa habaysan oo arrimihiisa dhan yacni iskugu hagaagsan yihiin oo alaabtiisa diyaarsanayo haddaysan waalidka ahayn waalid sidaasa markaste markaan waalidka waxaan ku boorinayaa hadduu ilmihiisa wax ka sugayo hadduu ilmihiisa ka sugayo inuu noqdo ilmo nadiif badan waalidka ma waalid nadiif badan ba ilmihii hadduu ka sugayo inuu yahay ilmo nidaamsan adigu waalid ma tahay waalid nidaamsan ilmihii haddaad ka sugaysid inuu yahay ilmo degan adigu ma tahay waalid degan sababta ah markaste ilmahaaga yacni inta badan hooyo kaste mise aabo kaste uu og yahay ilmihiisa wuu iska dhex arkaa ilmahaaga wuxuu noqonayaa hadaad adiga tahay qof fudfudud ilmahaaga wuxuu noqonayaa qof fudud mana khalad baa ilmaha inuu noqdo qof fudud may ilmaha way kala duwan yihiin ilmaha qaarka wuxuu u dhashay deganaasho ilmo qaarna wuxuu u dhashay fudayd laakiin ilmaha fudud waxaa laga wadaa waa arrin xun may ilmihii hadduu yahay ilmo fudud oo energy badan waalidka waa inuu u sameeyaa siyaabo energigas kaga bixin karo inuu banaanka geeyaa inuu meeluu jimicsi ku helaa geeyaa meeluu energigiisa ku saaro maxaa la dhahaa qodob aan rabeyna muhiim inaan ka hadlano waxay ahayd oon hadda jawaabteedan kusoo darayo barbardhiga ilmaha in la isku barbardhigin ilma haddii kuu jooga dhowr ilmo mid degan mise mid qalqaaliya inaadan u barbardhigin walaalkiis mise walaashiis oo dadin heblaayo mise hebel wuu degan yahay aduu saa maxaa u samaysaa walaalkaas sidaas buu sameeya adi saa maxaa u samaysaa waa xaggii ixtiraamka haddaad u noqotid nafsadaada aadba ma jeclid qof weyn ahaan in qof kale lagu barbardhigo mise lagu dhaho hebel jaamacadaasuu gala aduu jaamacaddaa mageshid mise hebel baabuurkaas buu haysta aduu baabuur qaaliya maad soo iibsatid marka kulli asaas waxay isku soo biyashubanaysaa inaad ilmahaaga ula dhaqantid sidaad adiga jeceshahay in lagula dhaqmo